barnaamijka dood furan ee TV-ga ETN waxa uu idin soo gudbinayaa ودستور أنا أفتي وقاعد دون وسيكون الجار وشقينية لكن وحي الشقة يصير جلسة مركي أفتي ددوين اللو قاعدو أما وحا أفكا غلط يكون ريفرندوم shacabka Puntland ma u madax banaayihiin inay su'aalo ka weydiiyaan baarlamaanka iyo xukuumadda ka hor intaan la gaarin afti dadweyne oo lagu meel mariyo dastuurka xaqsan ma u leeyihiin inay bartaan ama ogaadaan inta aanay isu taagin u codayntiisa waxaan jeclaan lahaa wasiirka inaan weydiiyo Jimcaale maadaama Puntland ay tahay state kamid ah federaalka Soomaaliya keebaa labada dastuur noqonaya yani origin ama marjac loo noqdo hadito لكن الدائم التأسيسين ودستور سيدان كأخري أي كقرنتها بنتلان وحي كمتها قيب كمتها صوماليا وي ودستور كوسيدا قيحي وحن قبل دورة بنتلان واحد مشكلة ما قاعد سؤال سعودة برلمانك كبرلمان حان ما كان حين تقول قدر دستور كستور بدنا نستوي كجرا ما أنا أهمت كشقية بدنا وده ما يستر سيدا سيدين أبنها واحد ثم قام صد نوضع شقية لا بعنا مقام سيدا وعن تحتين قدر كهدوي وهم كان أتحنيتين وكيرسكتين حقوق الدستورية مواطنين ناس لقى إيرانينا يوقفوا هذه حقوق يسلموا بالجو فرصافل هذه الدولة تعدي حد حقوق تنفوس رئيسه ما معها قراءة وكيلة كلي حقيقة الله مري reeban in muwaadin Puntland ah ama qof Soomaali ah oo Puntland ku nool loo gacan geliyo dal kale sidoo kale wuxuu qeexayaa dastuurku qofna lama dhiibi karo arrimo siyaasadeed awgeed marka sidee isku waafaqayaan dastuurka iyo sida aan maqalnay waqtigu waa gooban yahay Umar baa ugu dambeyn doona berri ayaan isugu soo noqonaynaa wixii su'aal su'aalahaasi iyo jawaabahaasi isku xidhan waxay horbac u yihiin barnaamij dood falanqayn oo ku saabsan dastuurka dawladda Puntland ka hor intaan afti dadweyne lagu meel marin sidoo kale waxa uu qayb ka yahay barnaamijkan faafinta dastuurka oo 24 bishii 2010 ku soo baxay faafinta rasmiga ah barnaamijka waxa qayb ka noqon doona doodayaal ay qayb ka yihiin mudanayaasha baarlamaanka xukuumadda iyo ku xeel dheerayaal aqoon sare u leh sharciga kuwaas oo ka jawaab bixin doona su'aalaha tirabeelka ee ka imanaya ka qaybgalayaasha barnaamijka oo diiradda saari doona 141 qodob ee uu ka kooban yahay dastuurka dawladda Puntland iyo 60 madax barnaamijkan iyo dhamaystira waxa dhawaan idin soo gudbin doona TV-ga ETN xaruntiisa saddexaad ee Garowe